وصوفيرينينا واكا وياهي إنا لله وإنا إليه راجعون قبل هالكن أي تعالى مرضان أدو جدين أي قبل مركز كود دنتهاي كو يطبن بلاد أي ميت كان للعاي بالشدي قرعة أي طبن وياهي حال شهر قرية مقال حال شهر قرية وياهي إنا لله وإنا إليه راجعون سجال بلاد أي ضد مركز وحشية إن لا ياهي هل كان أي قبل كود دنتهاي bulshadii ayaa aad markaas magaalada suugu soo baxday halkan waa Gurceel Jannat ma lagu arag arinkan waa ka qof ayaa feedayo iyadoo markaas ay feedayaan madaxooda inna lillahi wa inna ilayhi raaji'uun waa ka madaxii gabadha waa ka dad ayaa isku tumaya waa waladadaya dadka qaar way fiirinayaan inay aqoonsadaan ay rabaan waa waladadaya meedka waladadaya dadkan oo u badan haween ayaa markaas soo buux dhaafinaya halkan fadlan share gareeya si aan markaas idin kula wadaagno warbixinada deegaanka ka jira mid kamid ah hooyooyinka waxay noo xaqiijinaysaa in mididii gabadha lagu gowracay ay meesha ku jirto hay maxaa ka taqaanaa arinkan muxuu ku saabsan yahay hay gabadhan ma la garanaya sax meeqa bilood bay hooyadeed leedahay gabadhan bishaana sagaal ku ah hay marka xagee gabdhaha ay ku arkeen marka halkan hadii la keenay halkee lagu arkay meedka haye barkadan ay dhex yaaleen marka waa barkada ayaa lagu arkay mar horaan lagu riday way hay'ada u mahadsan tahay bulshadii ayaa markaasi tuban halkan fadlan muuqaalka share gareeya si asxaab badan uu gaaro gordho waxaan la xiriiri doonaa hooyada dhashay gabadhan oo warbaahinta ka soo hor muuqan doonto iyo iyadoo ka hadli doonto gabadheeda iyo inta bari ay leedahay waayahay barkada ay gabadhu ku jirtaan idin tusayaa waa kan halkan waa barkada ay markaas gabadhan ku jirtay oo ay gabdhuhu saaka ku arkeen waa meel biyo galeen ah saad u jeedin jawaankii waa ka oo gabadha markaas ay ku dhex jirtay halkaas bay gabadhu ku jirtay oo ah jawaankaas marka arin la yaab leh ay noqonaysaa maamadii haatan hadlayso waxa ay sheegtay in markaas gabadha meesha lagu riday iyadoo biyo ku jiraan barkadan waxaan ogsoonahay xilliga roobaadka in barkadan ay buuxsanto marka dhalinyaro badan oo dabaalanaysan waxa ay sheegeen in dhowr mar ay kor tageen laakiin ay u maleeyeen jawaan khashin ku jiro hooyadaasna gabadheedii waxay leedahay 9 bilood sida markaas la inoo xaqiijiyay goordhow aynu maamada markaas gabadha dhashay la hadli doonaa bulshadii Gurceel ay aad u soo badanayso iyagoo arinkan uu noqonayo arin markaas naxdintiisa wato Gurceel ay maanta arinkan ka taagan tahay waayahay aad aan ugu xunnahay tiraayadan la qaybsanaynaa waa laga feedayaa marada ayaa laga feedayaa mar kale marka dadku waxayna weydiinayaan sidee lagu aqoonsaday aqoonta lagu aqoonsaday ilagii jabnaa ayaa wali jaban oo markaas gabadha ilag ayaa ka jabnaa hooyadeedna saas ku aqoonsatay 9 biloodna waa ay leedahay dhowr mar social media ama Facebook waa laga baahiyay hasaate maanta ayaa meedkeedii la helay iyadoo waliba xilli hore markaas dhimatay wararkan waxay sheegayaan in gabadha la gowracay maadaama la sheegayo in jawaanka uu ku jiray mindi taana ay ka dhigan tahay in gabadha markaas la gowracay ama la bireeyay kadibna barkadan oo biyo ku jireen lagu soo kortuuray waayahay laamihii amniga ayaa yimaaday taliyaasha kala duwan ayaa halkan soo buux dhaafinaya bulshadii Gurceel ayaa aad u badan waa ay soo badanayaan bulshada Gurceel iyagoo arinkan markaas naxdin weyn ah ku haya fadlan share gareeya arinkan oo ah arin weyn looga naxay